مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأبقى مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأبقى مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. شاءني الله لإسعاد الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود شاءني الله لإسعاد الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود أنبياء الله أجدادي، ولم أر يوما مثل أجدادي جدود. أنبياء الله أجدادي، ولم أر يوما مثل أجدادي جدود. فأنا كنت وأبقى مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dhammaan walaaluhu meel kastay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidee buu la dhaqmi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam caruurta? waxaynu u baahannahay oo qof walba oo waalida oo ubad dhalay uu ku faraxsan yahay oo uu ka helayaa inuu waxa weeyaan ubadkiisu tarbiyad yeeshaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam qaab sideeyuu u tarbiyadeyn jiray caruurta? nebigu muu canaanan jiray? nebigu muu dhirbaaxi jiray? nebigu calayhi salaatu wasalaam muu eri jiray? may saasoo dhan ma ahayn. nebigu calayhi salaatu wasalaam sida waxa weeyaan u tarbiyadeyn jiray. nebigu markuu cuntada la cunayo caruurta hadduu ku arko wax khilaafsan sharciga iyo diinta suuban qaabkee buu daweyn jiray? hadduu ka soo horbaxo uu ka hor yimaado ciyaal badan sidee buu nebigu ahaa? hadduu arko nebigu ciyaal ciyaaraya sidee buu la ciyaari jiray? nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu arko caruur murugaysan sidee buu ahaa? nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa isagoo salaada ku jira hadday caruurtu ooyaan waxa uu ahaa mid soo gaabiya oo waxa weeyaane u tudha hooyada dhashay. saxaabiga la idhaahdo camar ibnu abi salama, ilaahay raaliha ka haadee, waxa uu leeyahay kuntu qulaaman fii xijri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. waxaan ahaa ilmo yar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la nool oo ag jooga. waxaanay ahayd gacantaydu mid waxa weeyaan marka cuntada la cunaayo dhammaan bileedhka iyo safxadda lagu cunaayo dul wareegta, kolba meel baan ka darsan jiray. faqaala lii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay baa igu yidhi, yaa qulaam sami illaah, waryaahay wiilkaagan yari markaad cuntada bilaabayso magaca ilaahay ku bilow. sidoo kale wakul biyamiinika, gacantaada midig ku cun. sidoo kale wakul mimaa yaliika, hagga ku soo xigta ka cun. nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 qodob buu sheegay ilmaha yar isagoo aan dhibaato u geysanin. waxa uu yidhi ilmahaagan yaro markaad cuntada cunayso bisinka ku bilow, dhanka ku soo xigana ku cun, waxa weeyaanay gacantaada midigna ku cun. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa mid dadka jecel inay aada u tarbiyadoobaan, yar iyo weyn, rag iyo dumar kay doonaanba ha ahaadaan. haddaba adigu waalidow sideebaad ubadkaaga markay cuntada cunayaan aad wax ugu sheegta? mad dhirbaaxda mise dhibaato kale ayaa soo gaadhsiisa? ku daya nebiga calayhi salaatu wasalaam. caruurtu waxa weeyaan waxay noqon doonaan qaar yaryar oo iyaguna ku dayda waalidkood
iyo nebigaba sala allahu calayhi wasalam. nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu midigta u farayaa in lagu cuno waxna lagu cabo. haddii midigta aad ku cabooydo waxba oo aad bidixda ku cunto waxaad khilaaftay sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu ahaa mid waxa weeyaan sunnada aada u ilaaliya. sidaa gadaasheedna waxa weeyaan waxaad ka xorowday shaydaanka iyo xertiisa. waayadad shaydaanku bidixda ayuu wax ku cunaa, bidixda ayuu wax ku cabaa. ha ku daya shaydaanka ee nebiga ku daya mar kasta sala allahu calayhi wasalam. caruurta haddayn doono inaan tarbiyadayno waxaa loo baahan yahay inuu qof kastaaba uu nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii akhriyo iyo siduu caruurta ula dhaqmi jiray. hadduu caruurtu yaryar yihiin iyo hadday qaangaadh ku dhow yihiin iyo hadday qaangaadheenba qaab loola dhaqo iyo hab loo tarbiyadeeyo ayay ina faraysaa diinteenna suubana islaamka. walaalkayga muslimka ahow, caruurta waxaa loo baahan yahay in mar kasta laga warhayo. waayadeed qof kastaaba shayga uu ku barbaaro ayaa uu ku weynaadaa. nebigeena wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam mid qaabkaa u tarbiyadeeya caruurta oo qaabkaa waxa weeyaan wax uu sheega. waxaan u baahanoo kale walaalayaal inaan la fudaydsan. qofku amba ha weynaado amba ha yaraado inuu gacanta bidix ku cuno waa inaanu fudaydsan. waayadeed wuxuu matalayaa oo waxa weeyaan isku ekaysiinayaa waxa weeyaanay reer galbeed iyo cid ilaahay subxaanahu watacaala u cadhooday oo ilaahay subxaanahu watacaala ka lumay jidkiisii. walaalkayga muslimkaayo ama walaashayda muslimta ahow, maanta ka hor haddaanad maqal maantaba maqal oo caruurta yaryare agtaada jooga ku tarbiyadee tarbiyadda wanaagsan ee nebigeena calayhi salaatu wassalaam ka sugnaatay. aad baad mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum jamiican. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.